qiso yaroo aad iyo aad u la yaab leh baan idinka sheekaynaya oo xaqiiqo u dhacday. gabadh baa waxay burco ahayd, in badanna waan ka sheekeeyey si ay ugu cibro qaataan dadku. waa masalo aad yacni in lagu cibro qaato u mudan. gabadh reer burca baa waxay siin jirtay nin miskiina ayay aroor walba quraac siin jirtay ilaahay dartii. laxoox iyo subag iyo waxay isugu dari jirtay koobkiisa shaaha ah. ninkii maalintii dambe ayuu gabadhii la hadlay, wuxuu yidhi heedha gabadh yahay, waxaan kuugu abaalgudo garan maayo, laakiin waxaan doonayaa inaan ku abaalgudo oo ninkaaga ku jeclaysiiyo oo aanu meel kaleba aanu hawaysanin. waa si fiican bay ku tiri, waa saxe iga caawi. deedna qardhaas qoran buu u keenay. maalintii dambe wuxuu ku yidhi ninkaaga barkimada u hoosgeli, maxaan ku idhaa cid kale hawaysan maayo, halkaasuna ha kuugu jirto. way ka qaaday, barkimadii bay hoosgelisay. ninkii markuu soo hoyday ee barkimadii ku seexday, ninkii waabu shaqo tegi waayey. kaadi uu u kaco mooyaan xataa salaad waa u kici kari waaye. uu kacaa, hadday wax yar uu cuno jiifkuu ku cunaa amba fadhiguu ku yarcana hurdadiibuu ku noqdaa. haddana uu kacaa markuu kaadi qabato hurdadiibu 3 maalmood iyo 3doodii habeen ayuu jiifba ka kici waayey. uu sariirtii uun jiifaa. waar wardee shaqo tag. waan daalanahay, idaadaasun bahaya, maba shaqo tegayaba. dabadeedna isagoo musqusha galay ayay ka soo saartay meeshii, way gubtay. ninkii caadi buu u dhaqaaqay markuu iska tegey, shaqadii buu tegey. ninkii kalena wuu yimaadaa mar walba, ka warran ninkii si fiican bay tidhaahdaa, sidhinkii waa haystaa. maalintii dambe waxay idhi ku kale ka xoog badan baan kuu keenayaa, ku kaloo kii ka xoog badan ayaan kuu keenayaa. waayo ii keen bay ku tidhi. wax yaroo tuman ayuu u keenay. wax yaroo tuman ayuu u keenay. wuxuu ku yidhi shaaha ugu dar. haya keen bay tidhi. way ka qaaday. waagii aroortii dambe markuu isagu imanayay ayay isagii shaaha ugu dartay. isagiibay shaaha ugu dartay. marka shaahii dhadhamiyey ayuu cabaaday. waa maxay waxaan ku leedisiisay? waa maxay waxaan ku leedisiisay? maradii buu turay, sidii buu ku waashay. been idii sheegi maayo. isaga kii waxaa soo dhigay. waa maxay waxaan ku leedahay? waxaad noo dhiibtay bay ku tiri. ninkaaga sii. waxaad nagu tiri ninkaaga sii, ayaanu dee adiga ku siinay. been idii sheegi maayo. sidiibu horta ninkaasi uu ku waashay. marka waxaan ka wadaa unasixukum billaah. nin ceel galay oo aan ka soo warramin nin maaha baa la yidhi. waraa'idu laa yakdibu ahlah. alraa'id laa yakdibu ahlah. meelaha aad ku warwareegaysaan ama gabadh la jeclaysanayo ama nin la jeclaysiinayo, waxaasoo dhani hadhow dhibbay keenaan. aniga intaasoo jeer waxaa isoo martay gabadh loo qabsaday madiido oo madiidadii iscakistay. madiidadu waxa weeye waxaanay carabtu u yidhaahdaan tiwalada, oo qofka ayaa waxaa la rabaa inay wax jeclaato ama ninku inuu wax jeclaado ayaa la rabaa. madiida la yidhaha af carabigana tiwala ayaa lagu yidhaahdaa. inantii markii madiidadii loo qabtay, dhammaan wax allaaliya wixii rag ah oo dhan bay saniftay. xataa aabbaheed, xataa walaalkeed, wax walba way saniftay. ragba hadduu noqdo qarhmuununbuu u soo uray. halkii laga rabay inay ninka jeclaato bay jamiica rijaal oo dhan bay nacday. mid kalena way soo martay oo isla madiidadaasa, oo markii madiidadii loo qabtay nimow nin ma tahay uun u jeclaatay. wax allaali wixii ninba sheegtaa way iska daba ordaysaa. waxaa anigu aan la kulmay ama ninkii arkay uu iga warramay, ninbaa wuxuu soo samaystay madiido. waa qiso aad u cajaa'ib oo qosol badan. ul baa loogu soo qabtay. oo had iyo jeer miyiga markaad aragto ul baa wax loogu soo aqriyayaa, wixii maxaanku idhaha junuudii lasoo raacinayaa. deedna ninkii oo ushii wata ayaa wuxuu soo maray meel ceel ahoo laga dhaansanayo ayuu soo maray. ushiisiina oo iska sitaa. isagoo oo markaa ushiisii sita oo doonaya inuu ceelkii ka cabo, ayaa dameer meesha taagnayd oo la dhaaminayay ayaa ku soo yara dhowaatay. deedna ushiibuu iskaga dhuftay.
dameertii baa daba carartay isagii meeshuu maraba way daba qaylinaysaa meeshuu maraba way daba qaylinaysaa war dameertii maxaad ku samaysay war dameertii baa ka hadhi weyday si allaaliya si looga reebo dameertii waa la garan waayay aakhirkii dameertii waa la dilay xaqiiqatan marka horta caalamkan aynu ku noolahay waa caalam wada asraar ah oo aynaan furfuri karaynin oo ilaahayna leeyahay subxaanahu wa tacaala wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila marka aqoonta maanta aynu u leenahay iyo mugga aynu u leenahay cilmigani waa aad buu u yaryahay ilaa iyo haddana dadkii kama waantoobayaan war ilaahay qur'aan buu ina siiyey وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين نبا نشيخ أيمي وحول الشيخو قرآنك أنيقا وإدبا يا مركا لا يقو أقريبا قرآنك مبكو عافي ماضي وحول دي منافق باتاي ما حدكو عدين يسا دي قرآنك أكو شيء بيلي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ده ظالم باتاي بيلي توبة كان مركز قرآنك وحكو أنفعيا أديقو هدان قرآنك كو كالسونين أو ثقة كو قبن وحبا كو تري مايو ظالم بعد نقوان إيسا ظالم كنا ما ينتفع صدد قرآنك وحا أنفعيا مؤمنك سيدي هذا من وحو أنفعيا قفك دايق إنسان أنا عند ظن عبدي بي ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة إلهي بريا إذنكو رميسان إنه إلهي إذن أقبليا ومبا هانيسان مشعوذ إيا سحر رولي إيا وحتين لا شقيستا منا بقفك بالمسلم كمبا هانيا لأنه وحو هيستا كلام الله تبارك وتعالى إلهي كلام كيسيبو هيستا marka waxaan idinku naseexaynayaa dadka meelaha fadhiya ee jimanka adeegsanaya ee shayaatiinta wax la qaybsanaya ee wax weydiinaya waxaan ku yiri qolehan maalintii dhawaad yimid gabadha lahaa wax lacag baan siinay maxaa ku rumaysateen waxay noo sheegtay xaaladaha iyaga oo dhan bay nooga warrantay magacaygii bay sheegtay magacay aabahay bay sheegtay kii awowgay bay sheegtay dhibaatooyinka aan qabo dhan bay ii sheegtay waatan habeenkii dhawaad idinka warramayay waxaan wax saa u sii ridan maaha inuu maxaan ku dhahay shaytaanka la shaqaysanaya inuu kaaga warramo xaaladaada oo dhan wax muhiim ah oo qofka bini'aadmiga awliyanimo tilmaamaya ama qofku inuu qaybka wax ku ogyahay tilmaamaysa ma aha labadan shaytaan ee qarinadun bay suuraysto anigay kaaga warramay marka barakallahu fiikum waxaan idinka digayaa oo idinka nasteexaynayaa dhib badan baa ka timaada marka loo tago saaxirka iyo maxaan ku dhahay kuwa mushacwidiinta diin ahaanna waaba dee lagu baaba'ayo waataan ka soo warranay ruuxii sixiroola u taga ee rumaysta wuxuu ka warramayo faqad kafara bima unzila calaa muxamed xadiidkii saxiixa ah qofka sixiroola u taga wax diinu haystaa ma jirto diinta islaamka bannaankuu ka yahay in loo taga ma ahan